asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal, waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtiin dhammaantiinba. ku soo dhowaada mawduuciina maanta. waxaa idingula wadaagi doonaa konton oraah iyo xigmado iskugu jirto, kuwaasoo noloshaada gebi ahaanba beddeli doono. intaanan u gudagelin mawduuciina maanta, waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka sabskraibe inoo saarto. haddii aad tahay saaxiibada hore nool joognay, waxaan kaa codsanayaa inaad janaalka noo sheer garayso oo saaxiibo badan aad gaarsiisay, laagtana ay noogu qurxisay muuqaalkeena. wixii fikir iyo talahana nolguda qaybta kommentiga, ama oraahdii xigmaddii ku soo jeedato nolguda qaybta faalada ama kommentiska. mahadsanidin. aan gudagalna mawduuciina maanta. carruurnimadu waxay dhammaanaysaa markaa ogaati hurdada inaysan ciqaab ahayn, balse ay tahay abaalmarin. 4 shay qalbiga ayay dilaan haddii xadka dhaafaan: cunidda, hurdada, hadalka badan, iyo kumilanka dadka. calool maran, jeeb eber ah, iyo qalbi dhaawacan waxa ay ku baraan cashirada ugu muhiimsan nolosha. noloshu waa sida ruwaayad aad tigidhkeeda jaratay, ha ku farxad geliso amiyay ku farxad gelinin, ka noqosho ma lahan. ha u murugoonin waxa aad weyday, laga yaabay haddii aad heesan lahayd inay murugada kugu sii badan lahayd. in 100 aragtiyood la keenaa waa wax adag, in hal aragti la fuliyo ayaa ka sii adag. in 100 aragtiyood la keeno waxaa ka adag in hal aragti la fuliyo. niyadjabka koowaad xanuun ayuu leeyahay, inta ka dambaysana waa casharo. haddii aad wax joojinayso, jooji caajiska, cudurdaar samaynta, iyo sugitaanka xilli ay wax walba habboonaanayaan. markii akhlaaqdu luntay, waxa aynu maraynaa heer qofka hadalkii uu subaxii lahaa galabkii beeninayo. inaad noqotaa qof hami leh, hal leh, hiigsi leh, oo hiiraal u muuqdo waa laga maarmaan. jawaabin markaa caraysan tahay, weligaa ha ballanqaadin markaa faraxsan tahay, weligaana go'aan ha qaadanin markaa murugsan tahay. dhibaatooyinka nolosha kuuma yimaadaan inay ku burburiyaan, ee waxay kugu yimaadaan inay kaa caawiyaan inaa ogaati kartidaada iyo awooddaada. xanuun iyo dhibaato kasta cashir ayuu kuu noqdaa, cashir kastana waxa uu beddelaa qofka noloshiisa. saaxiibka beenta ah waa sida harka ama hooska oo kale, had iyo jeer waa uu kula socdaa xilliga aad iftiinka ku jirtid, laakiin arki maysid xilliga aad mugdiga ku jirtay. weligaa kuma noolaanaysi nolol farxad leh haddii aad ka walwalaysi dadka waxa ay kaa aaminsan yihiin. intii hankaagu jiro ayay dadnimadaadu jirtaa. qofka laguu sheegayo waa carabkiisa iyo qalbigiisa, caqligiisa iyo waxa uu ku hadlayo. inta soo hartayna waa xoogaa lafo iyo hilbo. qofka markuu wacyihaan nolosha fahmo, 2 midkood ayuu noqdaa: mid abadkii aamusnaan ku dhammaysto, ama mid wax walbo cara iyo qaylo kala duldhaca. nasiib darnaa qof wax kasta yaqaano balse aan ilaahay garanaynin. maxaa ka fiican qof aan wax aqoonin balse ilaahay yaqaano. 3 shay dadka hala wadaagin: hantidaada, qorshahaaga, iyo afkaartaada ama siyaasaddaada. haddii aad rabtid noqo qof xun, balse ha noqonin beenaale. ha ka cabsanin inaad guuldaraysato, balse ka cabso inaad sannadka dambe joogto meesha aad maanta joogti. noloshu ma fiicnaato ilaa aad adigu fiicnaato. haddii aad rabtid inaad guul gaadhi, waa inaad tixgelisaa hal sharci: weligaa naftaada been ha u sheegin. bilowga wanaagsan waxa uu keenaa dhammaad wanaagsan. haddii aanad wakhtigaaga qiimayn, dadku wakhtigaagu qiimayn maayaan. aamusnaan xoog ugu shaqeey, guushaaduna ha samayso dhawaaqa. 2 shay ayaa ku qeexa: samirkaaga markaanad waxba haysan, iyo dabeecaddaada markaad wax kasta haysato. farxadda ugu weyn adduunku waa qabashada waxa ay dadka kuu yidhaahdaan ma qaban karti. haddii ay muhiim kuu tahay, waxaad heli doontaa dariiq. haddii ayna muhiim kuu ahayn, waxaad heli doontaa cudurdaar. riix naftaada, sababtoo ah ma jiro qof kale oo kuu riixaya. socdaalka kumanaanka meel waxa uu ka bilaabmaa hal tallaabo. argudashada ugu fiican waa inaad guul weyn gaadho. guulaystuhu waa qofka riyooday oo aan weligii quusan. haddii aanad weligaa guuldaraysan, weligaa wax cusub iskuma dayin. markaad u rabto guusha,
si la mid ah sidaad u rabto inaad u neefsato markaad ayaad guulaysan doontaa. dadka daciifka ah way aargutaan, dadka xoogganna way cafiyaan, dadka caqliga badanna way iskaga indhatiraan. sidaada kuu gaarka ah dhisan, qof kale ayaa kuu shaqaalaysiin doona inaad riyadiisa la dhisto. wax ka eegaa fursad kasta waxa uu arkaa dhibaato, qofka dhinaca fiican wax ka eegana dhibaato kasta waxa uu ka dhex arkaa fursado. guulaystayaashu ma ahan dadka aan weligood fashilmin, balse waa dadka aan weligood quusan. ha joojinin marka aad daasho, jooji marka aad si buuxda wax u qabato. ka bilow halka aad joogto, isticmaal waxa aad haysato oo qabo waxaad qaban karti. haddii aad ku guuldaraysato inaad wax qorshayso, waxaad qorshaynaysaa inaad guuldaraysato. weligaa ha quusanin, bilowga badanaa waa wax adag. xadid ma leh marka laga reebo kuwaad adigu samaysate. waxa ugu fiican ee aad nolosha samayn karto waa inaad naftaada aaminto. ha ka fikir inaad lacag badan dhigato, ka fikir inaad lacag badan samayso. weligaa qofna ha la wadaagin qorshayaashaada, balse beddelkeeda tus natiijooyinkaaga. waxaad heshaa waxaad shaqaysato, maaha waxaad rajaynayso.